بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله جل وعلا فرجا قريبا لهذه الأمة. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وردنا والمسلمين جميعا إلى دينك ردا جميلا. الحديث الخامس، حديث الشناد oo ka mid ah silsiladii الأربعين النووية. waxa uu xidhay ka hadli doonaa insha allahu tacaala umuuraha xidhay bidcada ah iyo wixii garansaya islaamka ku cusub ee aan ka mid ahayn, iyo sida loo radinayo ee garansaya looga celinayo diinta islaamka inay soo galaan, iyo wacdiga waciidka ka yaala ama goodiga ka yaala in xidhay qofku inuu bidco la yimaado. xadiidkan shanaad waxa soo warinaysa ummul mu'miniin ummi cabdillaahi caaishata radiyallahu canha, hooyooyinkii muslimiinta hooyo ka mid ah, hooyadii dhashay cabdillaah oo ah caaishatu bintu abibakr. caaisha oo magaranaysa abubakr sidiiq radiyallahu canhu cabdillaahi bin quxaafa uu dhalay, khaliifkii koobaad ee rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam waqtigii uu geeriyooday ka dambeeyey uu dhalay. caaisha oo ahayd gabadhii keliya ee rasuulku calayhi salaatu wasalaam guursaday iyadoo ah bikrad. zawjaadkiisa kaloo dhami waxay ahaayeen carmal oo dad magaranaysa la furay ama laga dhintay bay ahaayeen. markaas iyadu waxay ahayd ta keliya ay bikrad ahayd, waxaanay ahayd zawjadii saddexaad marka magaranaysa lasoo xisaabiyo zawjadii ka horreeyay laba ka horreeyay. waxa ay dhalatay ummul mu'miniin caaisha waxay dhalatay sanadii 604 ee hijriyada ka horreysay miilaadiga, sanadii 604 miilaadiga ama 19 sano ka hor intii aan hijradu bilaabmin. waayo waxa ay magaranaysa laqab ama maxay naanays u lahayd magaca al-Humayra oo ah in magaranaysa yani midabkeedu aad u caddaa. hooyadeed waxa ay ahayd Rumaan bintu Caamir. waxa ay dhimatay waqtigii magaranaysa 58 ay maraysay hijriyadu, waqti dambe ay ahayd magaranaysa rasuulka xoogaa bay ka dambeysay. markaas waqti waliba waxay yani ay bilaabmeen fitantii magaranaysa shiicada iyo waxaas ay bilaabmeen. waqtigii magaranaysa cali bin abi talib iyo la isku haystay magaranaysa waqtigiisii magaranaysa khilaafadiisii fitankii bilaabmay waqtigaasay dhimatay. waxay dhimatay waxa ay isguursadeen rasuulka calayhi salaatu wassalaam kadib qaswadii ama dagaalkii beder, iyadoo ay sanaduna tahay sanadii labaad ee hijriga, way bisha oo Shawaal ahayd. ummul mu'miniin ummu cabdillaah caaisha bintu abibakr waxay ahayd qofka keli ah ee magaranaysa axaadiista ugu badan ka soo wariyay rasuulka calayhi salaatu wassalaam, iyadoo lagu qiyaaso in ay 2210 xadiis wax ka badan ay ka soo warisay rasuulka, halka 316 ka mid ah axaadiistaasi ay ku jiraan saxiixul bukhaariga. asxaabta waaweyn ayaa xataa maxay u iman jiray caaishatu bintu abibakr si ay magaranaysa cilmiga ay rasuulka ka hesho ay uga sii qaataan, mar haddii iyadu ay tahay dee zawjad ka mid ah zawjaadkii rasuulka oo waqti badan rasuulka la qaadanayso oo wax fara badan magaranaysa iyadu fursad u helaysay inay ka ogaato rasuulka. waxa ay noqonaysay in magaranaysa axkaam fara badan ay iyadu markaa dee ay bixin jirtay oo warin jirtay. marka abu muusa al-ashcari waxa uu leeyahay wax maxay axaadiistoo iskaga kacay walaaqanta ama wax maxay axkaam oo nagu adkaatay bay jirin ilaa aan ula tagno caaisha kadibna aanu cilmi sax ka soo heli jirnay. waayahay
shiicada kuwa maxay al-ithna cashariya loo yaqaano Caaishatu bintu Abubakar iyo aabaheed iyo Cuthmaan iyo Abubakar iyo Cumar bin Khadaab khulafadaas oo dhan way isku nacdalaan oo aad bay u neceb yihiin marka waxa weeye ummul mu'miniin Caaishatu bintu Abubakar waxay ahayd yani hooyooyinka muslimiinta hooyooyinkii tii saddexaad ee booska saddexaad ku jirta waxa ay tiri xadiidkan markay weerinaysay ilaahay ka raali ahaadee qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam rasuulku waxa uu yidhi man axdatha qofka kusoo dariya qofka kusoo dara fii amrina diinta maxay islaamka iyo sunnada iyo toosnaanta qofka kusoo dara hada waliba yani diinta aan hadda gacanta ku hayno waxa cidda kusoo dartaa maa laysa minhu wixii aan ka mid ahayn fahuwa raddun waa lagu celinaya rawaahu albukhaariyu wa muslim bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiidkan waxay tiri man axdatha fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa raddun ayay rasuulka ka soo warisay inuu rasuulku yidhi qofkii diinta kusoo dara wax aan ka mid ahayn waa lagu celinayaa waayo wabicdi wixii bidcaa inaan magaranaysaa la qaadanayn weeye وفي رواية لمسلم إمام مسلم روايات كلا وليه waxa uu yidhi in ay ku soo aroortay man camila camalan laysa calayhi amruna fahuwa raddun qofkii sameeya camal man camila camalan qofkii camal ku kaca weliba dee camal saalix ula jeeda laysa calayhi amruna kaasoo aanay diintu aanay ka mid ahayn amarkaa hadda aan ku jirno ama masalan xaaladda aan ku jirnay in diintii iyo sunnadii uu rasuulku magaranaysaa gudbinayo qofka keena ama camal sameeya mid aan ka mid ahayn fahuwa raddun waa lagu celinayaa السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته